Xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa maraysa meel halis ah xilli ay u muuqato in Villa Soomaaliya ay qaadayso tallaabooyin siyaasadeed oo awood ku xakameynaysa xubnaha mucaaradka oo fikir ahaan ka soo horjeeda. Xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa hadda waxa ay muujinaysaa in madaxtooyada Soomaaliya ay si muuqata u gacan saaraysa baarlamaanka, si muuqatana uga awood roonaatay xubnaha mucaaradka, iyada oo loo adeegsanayo awood maamul, ganaxyo xildhibaan iyo isku dubirid siyaasadeed oo xooggan si loo meelmariyo ajandaha Villa Soomaaliya. Dastuurka doodiisa waa midda ugu adag ee isbuucyadii lasoo dhaafay ee dalka ka taagneed ilaa iyo maanta. Ku dhowaad 50 mudane oo ka tirsan labada gole ee baarlamaanka ayaa ganaxyo looga reebay dooda dastuurka kadib markii ay qalalaaso siyaasadeed ee ka dhex abuureen madaxweynaha waqtigiisa kasii dhammaanayo ee Xasan Sheekh Maxamuud oo isticmaalaya guddoonka baarlamaanka ee labadiisa aqal oo u adeegsanayo awood siyaasadeed oo lagu xakameynayo xildhibaanada. Sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo waqtigiisu gabagaba yahay waxay u muuqataa in uu iska hindhatirayo xaaladda siyaasadeed ee dalka ka taagan iyo si guud in laga heshiiyo nidaamka doorashooyinka ee dalka. Madaxweynaha waqtigiisa kasii dhammaanayo waxa uu dhammaan laalay oo gacanta mariyay gogashii mucaaradka uu u dhigay, isaga oo markaasi ku adkeysanaya qodobada qaarkood ay fulinteeda ay ku adag tahay dhanka maamulada diidan qorshaha madaxweynaha waqtigiisa kasii dhammaanayo. Sidoo kale xubnaha mucaaradka isha ayay ka eegayaan tallaabooyinka socda marka laga reebo tallaabooyin iyo cambaareyn iyo in ay si kulul uga hadlaan arrimaha taagan. Haddaba ma muuqato in awood kale ay ku xakameyn karaan madaxweynaha waqtigiisa kasii dhammaanayo ee Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxdiisa. Xubnaha mucaaradka ka agdhow ayaa noo xaqiijiyay in ay kaliya ay sugayaan waqtiga yar ee ka harsan muddaxileedka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, isla markaana ay qaadi doonaan tallaabooyin siyaasadeed ee dalka lagu badbaadinayo. Soomaaliya maanta waxay u muuqataa in kaliya laga xukumayo ay ka nooshahay ay tahay Muqdisho, marka loo eego dalka intiisa kale aysan gacanta ku haynin Villa Soomaaliya haddii ay tahay awood siyaasadeed iyo mid ciidanba. Sidoo kale madaxweynaha waqtigiisa kasii dhammaanayo ee Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mar kale damacsan yahay isku day siyaasadeed oo uu ku doonayo in marka saddexaad uu xukunka Villa Soomaaliya uu ku sii joogo, waxaana meel fagaaro si cad ugu sheegay in markii saddexaad uu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimada ee dalka Soomaaliya. Haddaba Villa Soomaaliya baarlamaankii dalka awood ayay ku xukumaysaa, isla markaana mucaaradkii daaqada laga saarayo in Villa Soomaaliya ay doonayso dastuur ay meel marsato, waxayna muujinaysaa in uusan jirin baarlamaan macno leh oo awoodna leh oo ka hortagi kara qorshaha guracan ee damacsan tahay Villa Soomaaliya oo dalka gelin karta xaalad siyaasadeed iyo kala qaybsanaan bulsho. Waxaa jirta dood ah in Jubbaland iyo Puntland ay yihiin awoodda kaliya ah ee si dhab ah uga hortagi kara wax ka beddelka dastuurka. Waa mid macquul ah sababtoo ah waxa ay leeyihiin awood siyaasadeed iyo mid sharciyadeed, waxayna leeyihiin saameyn ka baxsan tan golaha ee ka xoog badan tan xildhibaanada iyo mucaaradka, waxayna ku dhex doodi karaan shirka hadda loo ballansan yahay ee u dhexeeya madaxweynaha waqtigiisa kasii dhammaanayo ee Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubnaha samata bixinta Soomaaliyeed ee mucaaradka oo ay ku mideysan yihiin Jubbaland iyo Puntland. Haddaba maxaa laga filan karaa golihii sharci dejinta haddii marba ay Villa Soomaaliya ay ka dhex qadaynayso, sidoo kale ajandaheeda gurcan ay dhex marsanayso